dowladda Soomaaliya waxay qaaday tallaab culus oo ka dhan ah goobaha loogu talagalay in ay sidan u sii joogi karaan ciidanka Uganda ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ee gudaha Soomaaliya ka socda. wixii ka dambeeyay hadalka ka soo yeeray wiilka uu dhalay madaxweynaha dalka Uganda ahna taliyaha guud ciidamada dalkaasi General Muhoozi waxay dowladda federaalka Soomaaliya qaaday tallaabooyin kala duwan oo la xiriira inay ka feejignaato ciidamada u dhashay dalka Uganda ee gudaha Soomaaliya jooga. sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxay qaaday tallaab xooggan oo ay mar walba uga dhiifoon tahay ciidanka Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika kadib markii la sheegay in ciidamadaasi gudaha Soomaaliya suuragal ay tahay in si lama filaan ah ay ugu bixi karaan goobaha kala duwan ay joogaan. dowladdu waxay sheegtay saraakiil ka tirsan waxay sheegeen in ay ka hortagayaan firaaq dhanka ciidamada iyo xeryaha ay joogaan iyadoona arintaas darteed dowladdu ay bilowday in ay wada hadal gaar la yeelato saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda kuwaas oo la sheegay in qaarkood xanaaq siyaasadeed ay ku maqan yihiin. saacadii u dambeeyay magaalada Baydhabo waxaa ka dhacay kulan lagu soo dhaweynayay ciidankii Cabdilcasiis Lafta Gareen dhankiisa ahaa ee awdi la jiray kuwaas oo ugu dambeyn noqon waayay sidii Itoobiya ay rabtay oo ahayd in ciidamadaasi ay ka sii maqnaadaan magaalada Baydhabo deegaankaasina ay joogaan mar walbana xaaladda colaad u joog ay u noqon karaan. laakiin dowladda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka soo jeeda dhanka iyo koonfur galbeed ayaa wada hadal dheer kadib ku guuleystay sidii ciidamadaasi loola hadli lahaa maadaama aanay jirin wax dhibaato oo loo geystay dhankooduna ay geysteen laakiin isfaham daro dhanka maamulka isbedelka ku yimid darteed magaaladaas ay isaga baxeen ugu dambeysna magaalka lagu soo celiyay. ciidamadan ayaa la sheegay in ay ku biirayaan ciidamada kala duwan ee magaalada Baydhabo ka howlgalaya kuwaas oo amniga qayb ka qaadanaya. waxay diyaar u yihiin in ay buuxiyaan xeryaha iyo boosaska ciidanka Itoobiya ay ka bixi karaan mar walba gudaha iyo banaanka magaalada Baydhabo. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saacadaha soo socda la filayaa in gobolka Gedo ay geyso ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka. waxaa halka ku sugan ciidamo deegaan ah oo kala hore dowladdu halka ay ku haysay kana warqabtay. ujeedku waa in laga hortago in si lama filaan ah ciidanka Itoobiyaanka ay ugu baxaan xeryahaasi magaalooyinkaasna ay ku dayacmaan gacanta dowladda federaalka Soomaaliya ka baxdo ciidanka Itoobiyaanka ay u ruqaansadaan dhanka iyo xadbeenaadka. xogo sirdoon oo ka yimid dhanka iyo dowladdeegaanka Soomaalida oo la wadaagay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay muujinayaan in xaaladda Itoobiya ka taagan waa gudaha dalka Itoobiya aanay wanaagsaneyn. sidaas awgeed Abiy Ahmed oo dareemaya culays xooggan oo dhowr dhinac ah waa dhinaca dowladda federaalka iyo sidoo kale in uu dareemayo culayska gudihiisa ka haysta ama gudaha dalkiisa ka haysta inuu qaadayo tallaabooyin xooggan. Abiy Ahmed ayaa ka hinaasay munaasabadihii kala duwanaa ee dhacay iyo sidoo kale in Soomaaliya ay soo bandhigto hub casri ah ciidamo fara badan oo aad u tababaran iyo qalab kale oo ka howlgalayaan ciidamadaasi taasi oo keentay in mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Itoobiya markaan ay walaac ka muujiyaan xaaladaha siyaasadeed ee ka jira dhanka Soomaaliya iyo waliba gudaha dhanka Itoobiya. xoogagga hubeysan ee Abiy Ahmed ka soo horjeeda ayaa in muddo waxay sheegayeen in ciidanka Itoobiya ee jooga gudaha Soomaaliya dhammaantood ay ku faraxsan yihiin sii joogitaankooda Soomaaliya sabab la xiriira in ciidamadaasi ay ka baaqsanayaan ka qaybgalka dagaalka qasabka ah ee dalkooda ka dhici kara. ila wareedyada ayaa dhankooda waxa ay tilmaameen in maalmihii u dambeeyay ay socdeen abaabul iyo qorshe kala duwan iyadoona xukuumadda federaalka Soomaaliya ay tilmaamtay in ay diiradda saareyso inay ka hortagto sidii ay u ogaan lahayd dhammaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee la xiriira dhanka iyo howlgallada ka dhacaya deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobollada dalka. ciidanka Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka Midowga Afrika ayaa waxaa la sheegay in ay weheliyaan ciidamo kale oo aanay howlgalkaas u diiwaan gashneen. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay sheegay in ay joogaan ciidamo ka kala socda dalalka Uganda iyo Itoobiya gudaha Soomaaliya iyadoona ciidamadaasi ay yihiin kuwa la shaqeynaya dowladda federaalka. laakiin waxaa jira warar soo baxaya ay tilmaamayaan in
ay socdaan ama sida loo wado dhaqdhaqaaqyada guud ee arrintaas la xiriira haddii laga hortagi karo iyo haddii kale oo ay dowladda federaalku doonayso in gebi ahaanba ay meesha ka saarto isku day walba oo la xiriira in ciidamadaas gudaha Soomaaliya ay sii faragelin karaan arrimaha siyaasadeed ee hadda taagan. saraakiil iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay tilmaameen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira inay ka hortagaan isku dayadaasi iyadoona mas'uuliyiinta dowladdu ay sidoo kale sheegeen in ay diiradda saarayaan qaabka ugu fudud ee loo gaari karo dhammaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee la xiriira arrimaha dhanka siyaasadda ee ka jira dhanka Geeska Afrika. saraakiishu iyo xubnahanba waxay tilmaameen in ay wadaan isku dayadii ugu dambeeyay ee lagu ogaanayo xog walba oo la xiriirta in laga hortago dhaqdhaqaaqyada guud ee dhanka siyaasadda iyadoona dhanka amniga ciidanka federaalku ay bilaabeen qorshe weyn oo la xiriira sugidda amniga. wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigtay warbaahinta Xuraansi ku daawo waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka janalkayga.